عريري بجلسه haddii bulshada ka xoogsata jaadkani ay helaan fursado shaqo oo ka duwan kuwii ay hore u hayeen ma ka bixi doonaan shaqadan ka ganacsiga jaadka قاد واحد مستقبل ساوث سيلم معها لكن واسك بدي له هدي أنا عمل هلا يا أمي مقرنسا ميل أنجلي أنا ودي شهادتي وحي جنسنت أنا شهادتي وحي جنسنت أنا قاعد أسوق محل بلا معك يمكن فينا قاعد كل عصوته واحد بلا عمر هيا يمكن في إنا كل عصنا قاعد انت اللي وش غيرتي أنت اللي بيت مسرح هيا كشغلي بدل هذا قالك كان صوب حي واحد من حدكم دبرسي واحد كنت بري حافظي عمر اسماعيل واسلقي وكو كان عصته شغل غير عاد بالو قول عسلي cunista iyo ka ganacsiga jaadku waa mid ka jira magaalooyinka dalka oo dhan oo aan ku koobnayn magaalada Burco isla markaana la wadaaga saameynta kala duwan ee uu ku yeeshay bulshada Kalabayd waa xarunta uu ku yaalo kastanka ugu weyn ee uu ka soo dogo jaadku marka uu ka yimaado dhinaca Itoobiya halkaasna laga qaado casuurta jaadka kadibna jaadku u kala goosho gobolada dalka oo dhan sidoo kale gaadiidkii hore ee jaadka ka soo qaaday Itoobiya waxa uu ku wareejiyaa gaadiid kale iyaguna dib ayay uga laabtaan halkaasi marka gaadiidka jaadka sidaas soo gaadho magaalada Abaarso oo 50 kiiloomitir u jirta Kalabayd ayaa waxa uu ku leexdaa kastan kale oo cashuureed oo ku yaala magaaladaasi balse laguma cashuuro jaadka ee waxa lagu hubiyaa oo dib loogu tiriyaa tirada jaadka saaran gaadhiga iyadoo loo hubinayo in dhammaan tirada jaadka gaadhigu sido la soo wada cashuuray iyo in kale hase yeeshee mas'uuliyiinta madaxda ka ah kastamadaasi iyo saraakiisha booliiska ee ku weheliya ayaa markaa indhaha ka qaadaan suxufiyiinta iyo kamaradaha ay sitaan sas iyo cabsi ka qaada isla markaana ka gaabsada inay ka warbixiyaan su'aalaha ay wariyaashu uga baahan yihiin kuna hantaaqa hadalla ay ka mid yihiin awood uma lihin inaanu idiin fasaxno duubista gaadiidka jaadka sida ee xarunta ku jira iskabada inaanu war idin siinee arrintani waxa ay muujinaysaa kalsooni darada iyo baqdinta uu ka qabo mas'uuliyiinta ka sareysa ee keentay goobta waana arrin iska caadi ah in had iyo jeer goobaha dakhliga lacaguhu ku soo xaroodaan ee sidan oo kale ah la geeyo shaqaale idman oo ku xunan meelo sare iyo dana kale maadaama wax isdhaafin iyo musuq badani ku hoos jiro mar kasta jidka u dhaxeeya Kalabayd iyo Hargeysa waxa si xoog leh u mara gaadiidka sida jaadka ee isugu jira kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba Fadxi waxa uu ka mid yahay daraweynta gaadiidka jaadka qaada intii uu hana qaadayna ku shaqaynayay shaqadan jaadka isla markaana waa nin ku qanacsan kaxaynta gaadiidka jaadka inkastoo uu dhibaatooyin kala kulmay muddadii uu hawshan ku jiray fadxi ilaa halka ka soo baxday maanta jaadka soo qaaday Kalabayd qaadka sida waa nooce ina faras xagaa ku socotaa qaadka waa noociisu aankee شبس واحد وياه كيوا وينا ومسباق وحوي أفت هاريك حوق بدو بدي جايش قاط حوق بدو حوق بدو بدي ميادان خطر كعب سام مدرس ما هو كعب سام لكن لا هي بحال عليها لا بحال عليها فإذا هي كوكر نفس الجنس وحلا كوش تسيبشي فإذا كوش تاك كجناح سيقاتك حيتها واحد بشي بدن بقولوا ما تسمع مش تان ولا بشي بدن بقولوا لكن هدي واحد عمل هلي لها واحد عمل هلي لها ولا تدينها انت خش غير السيء الشقه دي اقول ريم بلا والله يمكن ايش يعني وانت الى انت جالس امس سنه وجالس لا لا ايوه قد والله انت ما حسن كرتا دباتي كوغو عسلو كلا كنت انت قاف ودي كلها اي يا يا بدن بتشد انت سيسي كرتا اي مركي قاعدين نسال عاي ku dhaawacmay اي ku daray qaado qaadka sita magaalada Hargeysa waxay ka mid tahay sayladaha ugu waaweyn ee jaadka lagu iibiyo gaar ahaan nooca loo yaqaan jabiska iyo madhabka kuwaas oo qiimaha lagu iibiyaa u dhaxeeyo $6 ilaa $12 jaadka soo gala magaalada Hargeysa ayaa socda ilaa habeenkii loona kala yaqaana channel 1 iyo channel 2 iyo channel 3 bulshada jaadka cunaysa ayaa ah kuwa aan mooganayn dhibaatada caafimaad ama dhaqaale ee uu leeyahay jaadku balse tilmaamaya inay duruufo kale ku kalifeen cunistiisa
adiga magaca yaa adiga magaca aniga magacayga cali baa laydhaa cali ayo cali maxamed baa laydhaa cali maxaad ka shaqaysaa yow marsa camal ma hayo imika maxaa kugu kalifaya inaad qaad ka cunto qaadkan waxay igu kalifaya saaxiibada bay soo qaaday marka dee war isku mashquuliyaa mar haddaad bila camal mar haddaan bila camal ayaan shaqa hayn magaan lacagna aadan hayna waxba ma hayaba dee ma iska daysi dee ma day karayo marka dee maadaamaanan camal haynin shaqana aan haynin waxaasaan isku mashquulaan biis iskaga dhigaa daroogiska laakiin waad ka waraysaa qaadka inuu caafimaad darro dhibaato caafimaad haa waan ogahay inuu dhibaato kasta nooc kasta uu leeyahay wuxuu leeyahay infection fara badan weliba dumarka ay dhib ku hayaan oo waan ogahay taa waxaa kaloo uu leeyahay hurdo la'aan cudurro fara badan oo maganaysaa aanay dadku imika aanay dee xasunayn ayuu leeyahay adoo intaa og maxaa kugu kalifay inaad cunto waxay igu kalifay camlaanta waan isku mashquulinayaa muddo intee leeg baad cunaysa qaadka imika muddo 3 sano cunayay reerii carruur malaada iyo xaas haa markaad qayso mushkilad iyo dhibaato adii reerka mid ku dhex abuuraa waayo waan isleenahay haa ma ka waraysaa carruurtaadu iskuulkay tegayaan haddii caafimaad ama xanaanan la geynayo may warba ma hayaba inay wax bartaan wax bartaan iyagoo hurduun baa imaadaan iyagoo hurdana waan ka tagaa masaariifta biilka xagee ka helayaan markaas dee miyow ilaahay unbaa siiyaa waxba ma helaan marka qaar intaad qaylaysay maxaa mushkilada ama dhibaata uu kuu abuuray baa isleeda qaadkan marmarka qaar inaan reerku ku jimaaba dee iyaaba marmar aan iyaaba soo saaba gabadhii un baabay tiraa war maxaad ku maqnay carruurta dee wax soo sii markaasun baa ana idhahdaa maxaa hayaa dee camalba ma hayee soodiyan qaadka cunaya naa qaad leyna naga tag maana idhaa haddaad camal ka fiican ama shaqo kale aad heli lahayd fursad shaqo ma iska daynayd qaadka alla waa iska dayn lawaa maadi haysaa imika adugu imikadaasa iska daynaya imikadaa haddaad iska disay haa haddaad shaqay haysa imika imika waxaad cunaysaa qaad waa ka dhaadheer ma dhiblayo imisa qiimihiisu waa imisa qiimihiisu waa 40,000 iyo 45,000 baa laga siiyaa marka loo bedelo $1 waa ilaa $6 oo kale haa waa ilaa $7 ilaa $6 weyn maalin kasta miyaad qashay mise markaad hesho maalin kasta cunaa taa laftooda haddaad dhigan lahayd miyaa lacag badan kuu soo baxdeen wuxuun baa yeerinayo kolaygii anigoo qaadkiisa dumaan sarkaya imigadan waxaa sidaa xalay waxa ku xisaabtamay in qaadka iska daayo oon farax ka qaado oon carruurta la iyaaroon meelaha iska maganaysa laakiin way kaa halkaas marqaankiiba halkaa ila maraya dee markaad qaysid aad ka kacdo maxaad dareentaa madaxa iyo dhagaxa iyo meel walba ifsadaan muud baan galaa sigaar kuun baan badsadaa markaana bal waayo waxaa la qaadka marqaan baa laga helaa bal marqaan inoo minceefiya marqaan marqaanku waxa weeye dee atashankaagii baa kacaya waa waalanaysaa gebigaaguba marmar baan gurigaygaba dhaafaa markaan meelaha ka kaca maqaya oon markaan guri kale aan garaacaa waa layga furaa waan ku maadahay haddee waa anigayga fur guriga soo iyadiiba maahaba yaa iyadiiba maaha aba raallihaada iyadii maaha raalliha gurigaygiiba idimoodayee marqaanku waa noocaasi marqaanku waa halkaasuu la maraya marqaanka kaasaa laydha laakiin dadka kale aan qayilin ama kuwa idaada yar cunaysaa iyaga maxaad odhan lahayd waxaan odhan lahaa isku cuna iska daaya iska daayaan odhan lahaa intaydii hore ku waalatay magacaadiga cabdi jaamiciga cabdi jaamac inta leeg baad qaadka cunaysay qaadku waxaan cunayay muddo 3 sano waad ogtahay u dhibaato caafimaad khatar leeyahay maxaa kuu kalifay inaad cunto macalkii qaadku waad ka war haysaa dhibaatooyinka dhibaatooyin badan oo xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha leeyahay labadaba u dilay intaa cunto waxa uu kulfay camal kale weyn oo ka shaqano waad qabato haa marka shaqada tan ku sugnaa ilaahay baan ku sugnaa mid doonta haddaad fursad shaqo oo tan dhaantay ilaahay ku siin lahaa kuma soo noqonayo kamala shaqayna dib looguma shaqayn qardame in badan baad cunaysay in badan baan cunayay waana ka shaqaynayay wax natiijooyin ma jirto in badan baad cunaysay haa ka shaqaynaysay waana ka shaqaynayay maxaa dhibaataa ama xusuustaada maankaaga xusuustayda ilkahaygu buu qabaa hurdalaan dhaqaalaha carruurtaadu badanaysaa kaas ku muha
مرة شغال كون أذن كوا بنقلوه ها أرمحوها اللي يبينوا ولا الخبر يقول بك ما هو ما إيه هبين كيو الشحذي أيام ترى قولي صبحين يقوم معاملات كم مغن وصل دعي أيام تجي خصوبة يقولي أنت بس ما رقنا واي قاد waxa lagu sheegay inuu marqaan badan leeyahay qaado marqaanka qaadka laga helo waxaad nooga sheegi kartaa wax marqaan laga helo qaadka ma jirto waxaan daroogahan miirka ugu bedelay qaadka waalwaalun baa laga helaa marka waalidaas marqaan loo yaqaana Soomaalidu loo wareerun bay tilaawa marqaan wax marqaan lama jiro libaasku waa dadka dadka يعرف مصلحة عبد أوكي دادا يدلنيرada imika cunaysa jaadka ee ku soo baranaysa iyo kuwa ka dambeeyay cunaya waxaad kula talin waxaan kula talin lahaa inay wax bartaan aan qaadka ilmada yareenka bilaabaya annaguna waan isku jirnaa dal shaqada taalo ha fulaan ku qaadana hase yeeshee qaar kale oo ka mid a dadkaasi ayaa si niyad ah ugu ganacsan cunista jaadkan aniga cawl koosaar baa leeyahay cawl koosaar bile عويل ها بعض قاعد كعونيسا إذا عصوا كلا ساريسا واركيا حرنيسا وقاد أيه قاد بان عنيا أنت سنة بالعنيس waxaan cunayay ilaa 30 sano ilaa 40 sano meelaha maxaa ku kalifeenaa waa dawo baalku caafimaad baan ka helay cudurro badan buu ka daweeyay ayna dadku garanayn bacaanka kamida dhiikarka kamida ma fahamtay ilkaha laftiisa waa u dawo baalku waa caafimaad inta aad sheegtaba waa inta dhaqaatiirtu sheegtay inuu halis tahay waan gartay qaadku sababo aad ku keentay inuu aad tiraado waa caafimaad dawo weyn oo caafimaad aan ka helay هذا يعرف والله هاي خيرك يا خلاف في مشكلة مخود حبورة هذه ما وحلال وحقول حبورة ما جرتو عروت السكول كم تكتم لا صعدة واحد برجل وين لا صعدة وانا صعدة يو كور هيا لكن بالكن هو الدو تذكر نوع عن كل طلينا يا إلى عادي يا عنان بالكن والدو والله ما كان قاد ويسكت احترام متكلم معها وبندرو وجبش وعوضي وبقول قاد هذا هو قرحيايو صاحب من كيريا مركز غيشان مركان ما حد انت عافماد وين وجوي وكا خيركي عروته ما كلا بدبادان waxba isku ma sheegano iyada baan ku mashquulsanay